fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle ayaa waxyeeleysay guryo ay ku noolayeen qoysas danyar ah iyadoona ay biyuhu hareereeyeen. wallahi waa qasaaro weyn guryuhu iska carshaan waa burburan musqulihi waa eber dadku xabad ma haysan waa ka qoyeen kasta haysta ninkii wax haysan waa ka qoyeen xaalad degdeg ah hayso hal laga soo gaaro. qaar ka mid ah bulshada rayidka ah ee ay arintani saameysay oo la hadlay warbaahinta ayaa ku talinaya in biyo xireen la sameeyo si loo xakameeyo qulqulka iyo fatahaadda webiga. biyo xireen noo sameeyaan siyaariyaasha xun oo la ordaa mar rabnaa siyaari $2 oo joogaay biyo xireen noo sameeyo wixii islaan ah noo kacaano dhibaataan haysato kumanaan kun oo dad gacmoole oo dad lugaale oo dad cuuriyaan dad indhoole ay ku jiraan meeshan musiibadan ay ku habsatay wixii islaan ah oo naga naxa biyaas biyo xireen looga sameeyo. dadkii ka barakacay fatahaaddan ayaa gaaray deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne halkaasi oo fariisiin u ah ciidamada AMISOM waxa ay codsadeen in loo soo gurmado iyagoona ka dalbaday hay'adaha gargaarka kaalmo bani aadanimo. waa iska kay haysa dhalimo iska kay haysa waxyaalahaas ahaay waa bixi waay aniga markii waxa ilaahay keenan iska sugi kar aan sugaa maahane waxaan ku bixi karay waxa ardima iyo wax talaahan ku bixi karo male waa biyanahay oo fara badan marka waxaan rabnaa in caawimaad noola keeno. hay'adaha samafalka ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa annagoo laab dheer degan oo biyaha aad u jeedin guri walba ay ku jiraan oo meelan uga baxna lahayn oo tabaran ku baxna saacan aan haysan hay'adaha inay naga soo gaaraan u baahana. webiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay sameynayay fatahaad sanadle ah mana jiraan biyo xireenno la isku hadlayn karo oo laga sameeyay goobaha ay inta badan biyuhu ka soo baxsadaan. Ibrahim Cusmaan Afrax Universal TV Beledweyne.